waxaan kuu soo bandhigi doonaa 7 qodob oo ka saacideyn doona noqoshada qofka wanaagsan shakhsiga hadda aad tahay. Qodobka koowaad, markasta ay ka fur albaabka qofka ka dambeeya kuma xirna heerka uu yahay mas'uul, madax sare, qof iska caadi ah, gabar, wiil, haweeney, caruur. inaad qofka ku ixtiraamto heerka uu ka joogo bulshada dhexdeeda kaama dhigayso qof liito oo daciif ah, balse waxay ka dhigaysaa qof u furfuran cid kasta, qabi isla weynanaysan ka muuqan. midna ogow, qof kasta oo bulshada ka mid ah waa muhiim oo howl ayuu u hayaa ummadda, haba kala duwanaato heerarka iyo habka shaqada iyo darajada lagu kala dhex leeyahay bulshada dhexdeeda. qodobka labaad, ku ixtiraam dadka haddii ay qabaan fikrad ka duwan ta adigu aad qabto, malaysana inay tahay mid saxan balse ula muuqato qofka kale sida aad wax u aragto si ka duwan. kala duwanaanshaha fikirku waa midka lagu gaaro guusha saxda ah. mararka qaar waxaad 6 u malaynayso ayaa 9 kugu noqon kara, oo macnaheedu tahay wax si kuula muuqday ayaa u janjeermi kara xagga kale. soo dhaweey markasta aaraada iyo fikrada dadka kale, hana ku qasbin dadka, ha kuna caburin in fikirkaagu yahay midka kaliya ee saxan. qodobka saddexaad, ha ka dhexgelin dadka hadalka oo u ogolow inay sheegaan waxa qalbigooda iyo carabkoodu rabo inuu dhaho, oo dhagayso ilaa ay ka dhamaystaan hadalka. ha qasin markay hadlayaan oo sug ilaa qofku ka dhamaysto waxa ka dhex guuxaya. markaad maqasho kadib hadal markaada, balse ha doodin sidii qof miyirka looga jiro. u hadal si degan, hana bobsiinin hadalka marka aad hadlayso. kalsooni darro ayay muujinaysaa iyo caqli yari. qofka aan sugi karin hadalka, ka sug dadka hadalka si waqtigooda, qaada kaada marka ay bogtaan warkooda. qodobkeena afraad, canaano qofka uu sheeg dhaliisha iyo cabashada aad ka tabanayso si shakhsi ah isagoo cidila joogin. ammaan qofka marka uu dadka ku dhex jiro, hana ku dhihin hadallo gaf ah ama talaha ku siinin bulshada dhexdeeda. inaad ammaantaa qofka oo kaa maqan waxay tusinaysaa qofka kale ixtiraam iyo qadarin aad u qabto, tahayna qof agtiisa ka weyn, cise iyo sharaf, karaamo ayuuna ku hayn doonaa. kana celi dadka inay caayaan ama ay xantaan qofka ka maqan, adiguna waxaa ka sheegin qof aan kula joogin. qodobkeena shanaad, qofku markii uu ku tuso sawir taleefankiisa ku jira, ha dhaqaajinin midig iyo bidix toona, sababtoo ah ma ogid waxa ku xigi kara sawirkan kale. ku ekow oo keliya sawirka lagu tusay, ha u gudbin sawirrada kale. waxaad arki kartaa waxaan lagugu talagelin inaad aragto, waa iga digniin oo keliya. qodobkeena lixaad, markii uu qofi kula hadlayo inaad eegtaa taleefankaaga ama aad ka mashquulshaa waa dabeecad aad u xun. dhegayso kadibna dhammayso howlahaaga kale. qodobkeenna ugu dambeeya ee 7aad, weligaa talo ha siinin qof aanan ku weydiinin inaad talo ku biiriso. hana ka dhiibanin fikirkaaga waxaan lagaa warsan ama aan wax lagaa weydiin. ha isliidin waxaan laguu sheegin ama aan lagaa waraysan, taladaada muhiimka ma ahan. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysatay 7dan qodob. anigu waa Axmed, intaan ku kulmi doonno barnaamijkan lacayna nabaadiino.